السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا channel كسومالي فاني ميديا مقاعي والد حزيز محمد ما أنتنا وحا كسو قادن دونا برنامج أسبوع لنا ونقون دونا محاد كوكتاي ما أنت وحان كسو قادن دونا محاسب وفقرتين ماذا قاردا أفريكا محاسب كوكتاي لحظة صوت إيكين فقرتين ماذا قاردا أفريكا وقاردا لباد وين كدب قاردا آسيا وأنا قاردا أو فقير سنة دونك مركان ديارنا برنامج كان وحا يسو بحي لحظة وصو فقرتين ماذا قاردا أفريكا adiga ma ogeyn aad igu raaci doonto iyo in kale waxay ka kooban tahay 55 wadan waa qaarad uu alle ku munaasay ilo badan oo dhaqaale laga sameyn karo sida wabiyada macdanta noocyada kala duwan hawo ku haboon ku noolaanshaha bini aadamka iyo waxyaabo kale oo badan oo aan la soo koobi karin waxyaabahaas oo faqirtinimada Afrika waxa kamid ah kow dagaalo sokeeye iyo argagixiso dagaalada sokeeye iyo argagixisada waxay qayb ka yihiin waxyaabaha saboolnimada dagaalka wuxuu dadka ku jahwareeriyay oo ugu taga saboolnimo waxayna sidoo kale ka jira ganacsiyada macaamiishooda waxa inta dheer wadooyinka iyo shabakadaha isgaarsiinta ayaa burbura ama xanima taas oo sii xuriyamisa ganacsiyada warshadaha ayaa burbura dadka shaqooyinka ma aadi karaan iyo maalgashadayaashu way luminayaan kalsoonida ay ku haystaan dalka dhibaatada ka dhacday sida darteed waxa ay ku riixaysaa gobolka ama wadamada ay dhibaatadu sameysay dhaqaale yari waxaa jira dadyo badan oo ku nafaya dagaalada iyo tiro dad ah oo ku dhaawacma oo aan la xusin khasaaraha hantideed ee uu ku darsaday kororka heerarka saboolnimada aagaga ay ka jiraan dagaalada iyo argagixisada tusaale ahaan dalka Nigeria kacdoonka Boko Haram waxa uu keenay in ka badan 100,000 oo dhimasho tan iyo markii uu bilowday howlaha foosha xumaa 11 sano ka hor wadamada soo saara sidalka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa ganacsi ee gobolada hoos u dhacay sida Kano uu hoos u dhacay 80% marka loo eego sanadka 2019 labo musuqmaasuq aan dhammaad lahayn waxaa loogu magac daray kitu kidogo ama jaayo oo marka la turjumo ay tahay wax iska yar iska bixi ama shaa musuqmaasuq waxa uu xidid ku yeeshay inta badan wadamada Afrika tani waxay qayb ka qaadatay dhibaatada Afrika maanta hogaamiyaasha sare ee dawladda iyo waxaa khaaska ah si isku mid ah ay u qaataan qaadashada laaluushka baaritaan sameysay Transparency International waxay muujisay in dawladaha Afrika intooda badan aysan awoodin inay ka soo baxaan hantida dadweynaha inay u xafidaan si fiican u maareeyaan dadka qaar oo la wareysi laga qaaday ay waxay sheegeen in musuqmaasuqa ka jira gobolka uu sii kordhay inkastoo ay jiraan ololayaal iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan bulshada rayidka iyo dadweynaha mararka qaar falalka musuqmaasuqa waxaa loo adeegsaday hurinta dagaalada sokeeye iyo argagixisada saddex waxbarashada iyo farqiga aqooneed ilaa iyo iminka qoysaska qaarada Afrika qaarkood ma awoodaan inay carruurtooda u wadaan waxbarasho asaasi ah oo free ah inkastoo dawladaha gobolka qaarkood ay qaateen arrimo ku saabsan bixinta waxbarashada asaasiga ah ee qayb mashruuc dawladeed haddana kuma filna dadyo badan ayaan haysan iskuulo iyo xitaa halka ay iskuulada ay ku dhisan lahaayeen xirfada yari iyo aqoon la'aanta ayaa ururiyamisa dhaqaalaha maadaama aysan jirin shaqaale xirfad u leh inay dalka u shaqeeyaan barashada ay qaarada Afrika u baahan tahay waa mid ku saleysan xirfadaha iyo tiknoolajiyada si ay ula tartanto wadamada kale ee caalamka si ay Afrika u noqoto mid la tartanta waxaa loo baahan yahay in la maalgeliyo dib loo soo nooleeyo nidaamka waxbarashada iyo nidaamka cilmi baarista inta badan dhalinyarada Afrikaanka ayaa maanta loo shaqeyn qaarna shaqo haysan sababo la xiriira waxbarashada la'aanta iyo xirfadaha farsamada musuqmaasuqa qaab nacib ah ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay heerka shaqada ee qaaradda Afrika booliska ayaa loo aqoonsaday inay yihiin kooxda ugu musuqmaasuq badan qaaradda Afrika ama gobolka afar caafimaadka iyo saboolnimada waa isku xiran yihiin markay qaaraddu awood weyso inay abuurto kaabayaal caafimaad iyo nidaamyo tayo leh dalkeeda waxa uu khatar ugu jira in dhaqaale xumi soo foosarto WHO hay'adda caafimaadka adduunka ayaa isku warramaysa in qiyaastii 1.2 bilyan oo dadka dunida ku nool ay ku nool yihiin saboolnimo ba'an oo ku nool wax ka yar $1 maalintii cudurrada qaar ayaa ah kuwa la isqaasin karo waxayna ku faafaan bulshooyinka saboolka ah oo aan awoodin inay helaan adeegyada aasaasiga ah tusaale ahaan faafidda duumada malaariyada si fudud ayaa loo maareyn karaa iyadoo loo adeegsanayo adeegyo fudud sida markanacooyinka iyo dawooyin kale oo ayaa farbaan ku haya qaaradda Afrika HIV/AIDS kansarka iyo cudurro kale ayaa sidoo kale soo kordhiyay heerarka saboolnimada ee qaaradda lamashan gargaarka caalamiga xiliyadii la soo dhaafay hogaamiyaasha Afrika ayaa la maqlay iyagoo ku dooday in hay'adaha caalamiga ah inay hakiyeen dadaaladii koritaanka Afrika intii lagu guda jiray shirweynaha sanadlaha ee dawladaha dunida ee dhawaan madaxweyne Paul Kagame ee Rwanda wuxuu sheegay in taageerada deeq-bixiyayaasha aan lagu tiirsanaan doonin weligeed laakiin taa beddelkeeda loo isticmaali doono in lagu dhiso hay'adaha iyo dhaqaalaha balse caawimada caalamiga ay inta badan wajahaan musuqmaasuq Afrikaanka waxay lumiyeen ku dhawaad 6 jeer waxa ay dalkooda ka helaan gargaarka sanad walba
inkastoo 134 bilyan soo gasho qaaradda Afrika sanad walba inta badan qaab amaah maalgashi iyo gargaarka 192 bilyan ayaa laga qaataa sanad kasta wadamada Afrika dhammaan inta badan macaashka ayaa sameeyay shirkadaha shisheeye canshuur dhimista iyo qarashaadka qibsiga isbedelka cimilada natiijadan ayaa ah in Afrika ay ku dhacdo khasaare dhan 58 bilyan sanad kasta. lamba 6 shuruuciyada ganacsiga aan cadaaladda ahayn soo bandhigista siyaasadaha ganacsiga ee cadaaladda ah loogu talagalay wadamada Afrikaanka ah inay la ganacsadaan wadamada dibadda ah waxay kobcin doontaa dhaqaalaha wadda Afrika si dhaqso badan marka loo eego gargaarka. Istaraatiijiyada ganacsiga aan sharciga ahayn ayaa khalkhal geliyay howlaha koritaanka Afrika. Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay ilaaliyaan warshadaha muhiimka ah ee Afrika kula tartami karto sida beeraha oo kale. Sidaa darteed way adkayd in laga ganacsado ururka Buffett Organization waxa uu ku dooday in halkii ay bulshada caalamku ay siin lahayn gargaarkooda inay tahay inay siiyaan shuruudaha suuqa kala doorbida. Tani waxay saameyn toos ah ku yeelan doontaa gudaha waxayna ka caawinaysaa inay ku guuleysto inay yareyn karto saboolnimada ka jirta wadamada Afrika ee dhulka leh. Khudbadii ku saabsan saboolnimada Afrika waa sida halku-dhigyo loo arko Afrika gobol ahaan waa hodan laakiin dadkeeda ay sabool yihiin. Afrika waxay awood u leedahay inay ka sareyso qaaradaha kale haddii kaliya ay xoogga saarto ka fogaanshaha musuqmaasuqa iyadoo la siinayo adeegyada aasaasiga ah ee ka mid yihiin biyaha, cuntada, hoyga, tamarta, waxbarashada, amniga dhammaan. Haddii ay si qoto dheer aan u eegno waxa ku yimid Afrika dhinaca gargaarka iyo waxa ka dhaca Afrika marka loo eego faa'iidooyinka bixinta canshuuraha iyo bixinta deymaha Afrika waxaa loo soo koobi karaa inay tahay hodan. Xaqiiqdii Afrika waxay maalgelinaysaa qaaradaha kale. Afrika waa qaarad hodan ah. Adiga tee baad isleedahay waxyaabaha sababa saboolnimada Afrika way u badan tahay sida 6 sababood. Maxaa keenay saboolnimada Afrika? Ku darso intay kula tahay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkani. fadlan ha naga ilaawin inaad subscribe noo saarto waayo waa ina dhiirigelinaysaa si aan muuqaalo qurux badan aan idinku soo diyaarino. sidoo kale ha naga ilaawin like iyo share. waa mahadsantihiin dhammaan waa inoo mar kale oo xiiso leh.